warbixintan waxaan ku eegaynaa 3 daqiiqo ee soo socota xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaan ra'iisul wasaare Roble oo xilka ka qaaday taliyii hore ee Nisa ee Fahad Yaasiin taasi oo keentay sida la sheegay markii ra'iisul wasaare Roble uu ka carooday warqad ka soo baxday Fahad Yaasiin taasi oo ku sheegay in golaha amniga qaranka uu ka horjoodinayo warbixinta ku saabsan dilka Ikraan Taaliil ra'iisul wasaare Roble oo taasi uu cunsami weysay ayaa xilka ka qaaday Fahad Yaasiin inkastoo wax yar ka hor daqiiqado madaxweyne Farmaajo uu soo saaray warqad kale oo ku sheegayo inuu sii shaqeynayo Fahad Yaasiin taliyaha hay'adda Nisa wixii intaas ka dambeeyay ayaa waxa magaalada Muqdisho gilgilay hadal haynta wararkaas ka soo kala baxay xafiisyada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble hadaba wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya laga hadlayo waxa kamid ah ila ku dhow xafiisyada Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo aan ka helayna waxa ay ku waramayaan in xafiiska Farmaajo uu dabada ka riixay is-casilaada in ka badan 10 wasiir wararka kale ee suuqa ku jira ayaa ah in Farmaajo uu doonay inuu xilka ka qaado taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raadi kaasi oo lagu bedelayo gaashaanle Ismaaciil Gurey oo horay u soo noqday taliyii hore ee Danab inta xilka uu joogay ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa asagana waxa lagu soo warinayaa inuu qorsheynayo inuu xilka ka qaado agaasimayaal kale oo ka tirsan Nisa waxa sidoo kale baaqatay shir degdeg ah oo taliyaha booliska Soomaaliya iskugu yeeray saraakiisha booliska kaasi oo looga hadli lahaa amniga dalka lama oga ilaa hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay shirkaas inuu baaqdo si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada Muqdisho ayaa la dhaqaanay mikrofoonka iyagoo aragtidooda ka dhiibtay warqadaha kala duwan ee ka kala soo baxay xafiiska Roble iyo Farmaajo ra'iisul wasaaraha xaq ay u leeyahay inuu xal yiraahdo xil ka qaado sababtoo ah mas'uulka oo xukuumadda ugu sareeyo hadii madaxweynaha laga reebo asiga way xilka qaadistiisa xil qaadis oo waajibiyan ah way ninkaasna nin dambiile ah way in xal yiraahdo maxkamad la soo saaro oo inta dhibaato oo u geystay mahadlaha oo gamadka ku jiro oo godka ku dhex jiro inuu xal yiraahdo laga soo saaro oo shacabka hortiisa lagu maxkamadeeyo wixii xaq shacabka ay oo dhibaatada oo u geystay 4 sano oo Farmaajo oo la joogay iyo inta oo qadar iyo xal yiraahdo 10 sano ayaa kiisas midba mid ka qatarsan yahay oo dalka iyo dadka lagu xasuuqay ay dhacayeen kiiska Ikraan Taaliil oo kaliya maanta koow ma waxaan u qaatay dad dana gooni ah leh inay aad u boonbooninayaan oo socodka qaranka Soomaaliyeedna ay turanturo ku yihiin fikradaasi gabadhii Soomaaliyeed haday dhimatay gabar bay ahayd qabiil ma ahayn qaran Soomaaliyeed bay waana u shaqaynaysay anagoo dhan bay naga dhimatay waxaa muuqata inuu jiray isdiji siyaasadeed inkastoo shacabka Soomaaliyeed aysan taasi dan u ahayn laakiin waxaa danta u ah oo ay sugayaan ayaa ah in la dhowro ammaankooda iyo sidoo kale inay helaan war fiican oo ka soo kala yeera mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dalka sida ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda u muuqato inay markaan si toos ah isku hayaan marka la eego dhinaca siyaasadda